halkani waa TV-ga hoggaan TV waxaan ballan qaadaynaa in aan abaabulayno oo aan ku dhawaaqayno dhalinta kacdoonka midnimo meel walba oo adduunka ka mid ah iyo shanta Soomaaliyeed moogaane waa halka keliya ee Soomaaliya lagu badbaadin karo haddii aadna taageerto 2023 saddexda waxaa helaysaa ciidamo tafatiran wax walba oo dhammaystiran barnaamijka aanu u tabinayno aan Soomaaliya ugu talagalnay ee la yidhaahdo Somali New Vision oo dunida aan ku soo kordhinayno ee ah kitaabka Ilaahay iyo articles principal governmentiga kale ee la socdo waxaa kaleeto oon idinku bishaaraynaynaa in maanta shanta Soomaaliyeed ay isqabsatay inay ciidamo iyo jenaraallo ay ka bixi doonaan magaalada Muqdisho ayna arki doontaan in maalin dhow ay ku dhawaaqaan dhalinta kacdoonka midnimo waxa aan ku leenahay xarumo shanta Soomaaliyeed meel walba deegaanka Soomaaliya sida Jigjiga iyo waxaan ku leenahay Gaarisa Muqdisho Hargeysa Kismaayo Berbera Boosaaso meel walba dunida ku nool waxaan idin leeyahay walaalaha qiimaha iyo qaayaha ku soo biira dhalinta kacdoonka midnimo hoggaan TV iyo kuma ogaadin waxaan soo bandhigaynaa 6 bilood oo keliya Soomaaliya sidaan amniga ugu dhigayno sida geemka aan idin dhigaan ahayn ee shanta sano ee xalana lagu hogaaminayo ee ah isnacsiinta ummadda Soomaaliyeed iyo hoggaan mar walba wax beena intuu soo banqaado lacagtana laga faandhigayo qadar la dhaho dalkaada burburi iyo dadkaada sii kala geey dadna isku sii beer haddaba waxaa ilaahay mahad lagu mahadiyaa in dhalinyaradii aqoon-yahanadii iyo culimadiinkii dhammaan hadday u ogaadeen in noo wado configuration Ethiopia nagu darayo oon 7 sano ku dhawaaqayay waan albaabadaasi waan xiraynaa waxaan leeyahay 2021 waa halka fursad ee aan leenahay haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed inta aan naga qaadan aan nagu magacaabin fail state ee istiqaalada nagala noqon oo 100 sano oo dambe xataa aan heli karaynin waxaan idin leeyahay walaalayaal kusoo biir haddaad dhalinyaro tahay waa kitaabka Ilaahay Soomaalinimo cadaalad iyo sinaan shisheeyadiid Itoobiyadiid xalanana waan ka saaraynaa dalka ciidamadii geesiyaasha ayaanu nahay Afrika aan iska celin karaynin waxaan weynay hoggaan xumo ayaan heshay annagu mabaadiida oo ku qancinaynaa kusoo biir dhalinta kacdoonka midnimo oo ay ku dhawaaqday hoggaanka TV oo aan ku soo bandhigi doono wax kasta iyo sida loo qaban karayo 6 bilood in dalka Soomaaliya amni loogu dhigi karo laguna qabsan karayo dhammaan haddaba waxaan idin leeyahay dhammaantiin intay dhegaysanaysay intay la socoto kusoo biir hoggaan TV barnaamijkana wuxuu ku ballanqayaa fursado badan oo ku tusaya inay dhab naga tahay waayo waxaan ku soconnaa riyaal saalix ilaahay riyooyin uu nasiyey oo awood badan iyo kitaabkii Ilaahay cidna hor istaagaysana ma laha adduunka dhan wuu iskugu keentagay waxaana la rabaa inuu noo galbiyo Ethiopia mana dhici doonto Ethiopiana waxaa lagu maaweelayaa oo Soomaaliya aan idiin soo wadnaa urur EPP loo barwaaqo ah aan idiin soo bixinay barwaaqadaas baad daaqaysaan kuwana waad ku kortoognaanaysaan jooga waxaa laga rabaa inaan noqono Falastiiniyiintii labaad haddaba waxaan idin leeyahay walaalayaal haddii aad xaqiiq u baahan tahay ciidamada militariga ee Ethiopia ee lasoo sameynayo badda ah miyaadan ku quus qaadanaynin tegadahan iyo waxaan dhan oo la siinayo maxaa galibay maanta isagoo oo bilada nabadda haysto inuu ciidamo Ethiopia halkaas waxaanoo dhan waxaa ka sira sirdoona waaweyn oo fadhiyo xalana ayaa waxaanoo dhan ka shaqaynayo waxaan leeyahay mar kaleento hoggaan TV ninkii dhalinyaro oo dalka iyo dadka iyo diinta ka naqayo kusoo biir 2021 annagu san ku sheegnay 2025 shanta Soomaali oo Israaciil hor istaagi karaysan malaha wiilka geesiga wuxuu u baahan yahay qadiyad inaan u sameeyno ciidamada qadiyad inaan u sameeyno iyo mabda iyo qadiyadeedana waa kitaabka Ilaahay iyo shanta Soomaaliyeed Soomaalinimo cadaalad iyo sinaan shisheeyadiid qabyaaladid geesiga sida halka u jiifo yaa iska celin karayo wuxuu waayay hoggaan wuxuu waayay maamul wuxuu waayay cadaalad waxaan galoo kusoo gabagabeynayaa ummadda Soomaaliyeed ee dhegeysanaya meel walba ay joogto iyo wiil iyo gabar ka qayb qaado aniga oo ah wiilkii mucjisada waxaan soo baxayaa bis 15 waxaa lagu martiqaaday shir London ka dhacayo kaas ayaanu ku soo bixi doonaa meesha ugu horeysa ee shacabka Soomaali ugu arkayaan waa garabkayga midig ee xisbiga oo NLF oo aad ku arki doontaan kulamada 5 bisha 3 soo socota inaan ka soo dhex muuqan doono cid maanta aan u haganaya ma jiro hadda waan awoodaa in la dilo sababta oo ah wadada aan marayay ayaa ahayd mid dil ku salaysan ee Soomaaliya aan ka samata bixinin laakiin hadda waxaan helay 10 kun oo wiil oo dhalinyaro ah oo qaadayo wadadaydii dalkana badbaadin karayo hadda aan dar ka baxo si aan mar kale ugu suurtagelin in halkaa la dhigto nin qubsaar ah oo mar walbaba xalana laga soo doorto oo been iyo khiyaali nagu maaweeliya annagana inagala dila isagana lacag iska aruursada afar sanano waqti inaga dila guusha iyo gobonimada waa dhalinta kacdoonka midnimo iyo hoggaan waxaan leeyahay mar walba kusoo biir